nimanka tuugsada Soomaalida arag sayida ka tuugsada qaar badan baa shaqo iyo xirfado yaqaan nin baa maalin masaajid anoo jooga buu ka istaagayoo safar baan nahay saxidaa naga go'day laba dumaraa bannaanka inuu taagan baska Mombasa inaan raacnaan rabnaa noori noo ururiyey waa la ururiyey bil kadib masaajid anoo tukiyey buu agteedii istaagay buu intii ku celiyey taan gacanta qabtay aan fadhiiso waliya kada weligaa ma safar baa taho ma haween ma banaan ku taagan ma ku maxaa tiri masaajidka hebel maalin hebel sogaad ka istaagtay ma ku haween banaan ku taagnaay miyaad joogtay buu yiri kaas waxaa ku yidhi hawaan joogay soo fadhiiso anigoo dadka ay kala tegay yiri ana caawa wax ku siinay soo fadhiisaan ku kaas waxaan weydiiyey saad ku bilowday meel Mombasa joogay meel baan ka shaqaynayay shaar fiican baan qaadan jiray nimaan shaqada ka wada shaqayn jiray baa naga soo tagay Nairobi uu yimid mashruucan u galay maalinkii dambe uu yimid xilniyo meeshan waad ku dhimatay waqti dheer iyo dhib badan baa ku dhacay inaa iska seexato waqti koobanna lacag ka badan ku hesha shaqo aan ku hayaa oo maxay tahay tan uu ii keenay dhowr masaajid baad ka istaagi habeenkiina waa iska seexan suuxi waqtigaas soo bixi 5 salaadood baad 5 masaajid isku kala aadin bishii waxaad shaqaynaysaa hal maalin baad hilib bal tashkiilinta intaa leeg ninkan su-aashii waa xaaraan waxay isugu dhex darmatay kow inuu xaaraan cuno laba in xishoodku ka tago qof tuugsanaya waa qof xishood ka tegay saddex in sharaf dhac ku yimaado waxaan ku yidhi waabu ku arkaaye ceeb badan iyo sharaf dhac badan ma ka aragtay markaasuu yidhi haa maxaa kugu darnaa waan ku yidhi wuxuu yidhi habeen anoo meel socdaan laba gabdhood arkayo inaan la sheekaystaan nabcay waxay sheekadii markaan wadnay mid intii saa i fiirisay allah ha ogtay waa kii masaajid ka tuugsanayay tiri الله روح يوم نقطع محل الله الله يدهو مركي دم الجبر دم بوان لهدي وايد هذا الله كي تكسر يوي مركا ضدك مركا مريو وين يرفع الصداوي شرف درده انت عليه هي ابتي انا انت مساجد في قرب الله وكشف يا